الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال waxaynu halka kan ku soo gudbinaynaa mowduuc aynu ugu talagalnay inaynu kaga warrano xoolaha xaaraanta ah iyo meelaha ay qofka ka soo galaan meelaha ka soo galaan waxa ka mid ah ribada qofku uusan u aabayeelahay waxa uu iibinayo iyo habka uu iibinayo ribadu mar waxay noqotaa qofkii aad deynta ku lahayd oo deyntii aad iska soo bixin kari waayay ama deyntii aad siyaadiyo faa'iido ku korsatid marna waxay noqotaa labada shay ee la isku iibinayo oo sidii sharciga waafaqsaneed aan la isugu iibin markay yihiin waxyaalaha ribadu gasho sida lacagihii la isku sarifayo oo kale dahabka markii la iibsanayo oo kale iyo waxyaalaha la midka ah waxaa qodobka labaad ah oo meelaha ay ka timaado xoolaha xaaraanti ka yimaadaan qishka iyo in la isku dago marka wax la kala iibsanayo qofka in laga iibiyo ama qofku markuu wax asagu soo iibsanayo ama asagu sii iibinayo inuu u iibiyo hab ay ku jirto inuu qofkan ku khiyaameeyo oo uu ku dago maxay noqon kartaa mesela waxay noqon kartaa wixii aad u miisaysay inaad miisaankii ka yaraysid waxay noqon kartaa lacagta aad qofka u dhiibaysid inaad ceeb ku ogtahay laakiin aad qarinaysid waxay noqon kartaa badeecada aad iibinaysid inaad ogtahay in badeecada wax ka khaldan yihiin iyo alaabta aad iibinaysid laakiin qofkii aad ka qarinayso u sheegahay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah wixii haddii lagu iibinayo giraam ama lambar dusha kaga qoran ama shirkadda magaceeda waxaa wax ka bedelan inaad qofka ka iibisid magac shirkadda lagu iibsanayo ama ku qoran laakiin xaqiiqo maaha waa feek lambar iyo giraam baa ku qoran laakiin gudaha waxa ku jira sidaa uu ka duwan yahay isaguna waa qish iyo xaaraam weeye meelaha qofka ay xaaraamta ka soo gasho qofku marka waxa uu iibinayo inuu lillaahi ku iibiyo sida ilaahay ku og yahay ee shaygaas yahay uu sheego nabigaana wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam labada qof wax kala iibsanaya hadday run isu sheegaan oo waxa meesha ku jira caddeeyaan xaqiiqadiisa waxaa loo barakeeyaa beecooda hadday laakiin been isu sheegaan oo wixii kala qariyaan oo ceebtii shaygu lahaa la qariyo nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam muhiqat barakatu bay'ihima bay'oodu barakadu lahaan lahaa iyo iibkoodu meesha laga saaro waa la baabi'iyaa ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah meelaha xaaraatu ka soo gashay ugu waaweyn rishwada iyo laaluushku hadda wuxuu ka mid noqday waxyaalaha iskaba caadiga ah ayuu ka mid noqday dowladihii baa qaadanaya dadkii xarumaha dowladda ka shaqeynaya baa qaadanaya dadkii shacabka ahaa si caadi ah u bixinaya wadada la marayo ee gaarigu maraya baa inta lagu bixinaya laaluushkaasi waxyaalaha xaaraamta ah ka mid yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday ka rishwada laaluushka qaata iyo ka laaluushka bixiya iyo ka u kala adeega ee labada istusa ee u kala dhex shaqeeya nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexda uu lacnaday nabigu calayhi salaatu wasalaam saddexdoodana wuxuu ka dhigay inay dambiga ku siban yihiin ayuu nabigu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam marka laaluushku waxyaalaha khatarta ah ayuu ka mid yahay ummadaha baabi'iya qiimahoodana dila waxaa ka mid ah meelaha lacagta xaaraantu qof ka soo gasho inuu qasbado ama uu qaato hanti uusan lahayn biduuni xaqin oo wixii hore dhan way soo wada geli karaan marka aklu amwaali naasi bilbaatil qofka xoolihiisa inaad ku cunaysid waj aan sharci ahayn oo qof bila aadan xoolihii waxa lagu cuni karaa inaad ama xaq ku yeelatid ama aw asagu ku siiyo asagoo raali ku ah labada waxa ahayn oo lagu cuni karaa ma jiro hadaa aad xaq u yeelatid inaad cuntid oo maaragtay shareeco iyo diiri ku waajibisay qofka inaad xaq ku leedahay waad ka qaadan kartaa waa laga siin karaa ama adigu ka qaado ama cid ha ka siiso haddii aw asagu ku siiyo kuugu tabarucana oo asagu dar ilaahay kuu siiyana ama hadiyad ha kaaga dhigo ama ha kugu sadaqaysto ama si kale ha kuu siiyo waad qaadan kartaa labadaa wixii aan ahayn waa xaq darro weeye waa xaq darro marka waxaa soo gelaya kuwa ugu khatarsan ka mid ah xoolaha agoonta oo la cuno oo gardarro lagu cuno xoolaha agoonta waa dad jilicsan oo masaakiin ah cunitaanka la cunaayo waxay leedahay khatar gaar ah waxaa khatar gaara siine xoolaha dadweynaha xoolaha danta guud ama dhul ha ahaato
ama gaadiid ha ahaado ama doolar iyo lacag cad ha ahaado ama wax kale ha noqdo ama xataa masaalix iyo dano bulsha leedahay oo laga taajirayo laga ganacsanayo ha ahaado dhammaantood way siman yihiin waxay ka mid yihiin markaa meelaha ugu khatarsan oo waxay kaga khatarsan yihiin waxa qofka gaarku leeyahay qofka gaarkii wuxuu leeyahay si uun baad isaga xalaalaysaa ama qofkii baad u celin oo waxaad leedahay iga qaada waa kuwan ama qofkii baad leedahay warniyow isaabax beri baan xoogaa wax kaa taataabtay laakiin xoolo dadweyne oo qaar dhintay iyo qaar nool iyo kuwa daciif ah iyo kuwa awood leh iyo kuwa aad taqaanid iyo kuwa aad aqooni wada leeyihiin hadday kugu tagaan ama xoolahaaga ay galaan qof uu balaayo ilaahay la doonay baa tahay si aad uga taxallushid iyo si aad isaga xalaalaysid baa aad u adag si aad uga laabatid baana adag ha ahaatee wax waliba toobad bay leeyihiin meel looga laabta bay leeyihiin waxaynu u dardaarmaynaa qofkii si uun xoolo xaaraani gacantiisa ugu jiraanow intaad maanta nooshahay ee nafta kugu jirto ee aad awood u leedahay inaad iska celisid iska celi haddii kale wallaahi maalin aad intaa ka tabar daran tahay oo aad qaawan tahay oo aadan qiimo lahayn oo aan toobad lagaa aqbalahayn oo ilaahay waa iska celiya igahoo aan lagaa aqbalahayn baad ka shallaayi doontaa oo aad soo celin doontaa ilaahay waxaynu weydiisanaa wixii khayr inuu waafajiyo allahuma kfinaa bixalaalika can xaraamika وأغنى بفضلك عمن سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.